luq aad u cariiriya marka soo baxa insha Allah biidillah waa u gudbaynaa waxaanu isku dayaynaa inaynu insha Allah aynu marno meel kasta oo tacaba oo nabigu maray sallallahu alayhi wasallam inaynu marno ayaan isku dayaynaa طبعا ولي واسي سعنا ولي ماشي القرآن كسو دقي ولي ما إنن قارن سوسعه سوسعه walaalayaal meeshaan hadda aan ku suganahay ama godkaan hadda u jeedaan waa god waxa weeye magaciisa la yiraahdo qaarul xir ayaa la yiraahdaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam intuusan nabi noqon ka hor ayuu meeshatan iska imaan jiray isaga oo ka fakaraya ilaahay samadan iyo dhulkaan khalqay iyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala sida uu koonkaan u khalqay isaga oo ka fakarsan habeenada kamid ah oo ay tahay bil ramadaan ayaa waxa uu yimi halakan isagoo jooga طبعا nabigu markuu halkan imaan jiray muddo ayuu iskaga dhex jiray dhowr maalmood ayuu iska joogi jiray raashinkiisa iyo sharaabkiisana hore ay u soo qaadan jiray rasuulku sallallahu alayhi wasallam isagoo halkan iska jooga oo iska cibaadeysanaya ayaa waxa uu yimi malaku jibriil ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo nabiga sallallahu alayhi wasallam oo u soo diray markaas jibriil waxa uu ku yiri nabiga sallallahu wa salaamu alayhi markuu u yimi ayuu wuxuu jibriil nabiga ku yiri iqra ayuu ku yiri markaas ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri akhi buu ku yiri walaalkayow ma ana biqaarin ya akhi buu ku yiri waxna ma akhriyo waxna ma qoro markaas ku yiri mar labaad ayuu wuxuu ku yiri iqra waad akhrinaysaa akhri ayuu ku yiri markaas wuxuu ku yiri ma ana biqaarin ya akhi markaas ku yiri hadana iqra wa akhrinaysaa akhri markaas ayuu waxa weeye u akhriyay jibriil oo wuxuu ku yiri waxa tiraahdaa iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min 'alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أيوك يرى رسولك صلى الله عليه وسلم مركز رسولك كدب يري أو حفظي marka ay arintaas dhamaatay kadib ayuu nabigu isagoo baqsan oo argagaxsan oo gariiraya ayuu buuratan ka degay kadibna waxa uu tagay xaaskiisa khadiija ayuu u tagay ilaahay raaliha ka noqday isagoo wuxuu leeyahay idaboola isagoo leh oo baqsan ayuu gurigiisa tagay markaasay khadiija ilaahay raaliha ka noqday nabiga ay dajisay oo tartiib ula hadashay oo waxa weeye markii ay baqdintu ka baaday kadib waxoogaa degayna waxa ay ku tiri ii waran maxaad soo aragtay rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu sheegay wuxuu la soo kulmay iyo wixii uu arkay iyo wixii uu maqlay ayuu khadiija u sheegay markaas khadiija ilaahay raaliha ka noqday waxa ay ku tiri walaalkayna adeerkayow waxaan kuugu bishaareynayaa oo ilaahay kaaga rajeenayaa inaad noqonaysid nabigii ummadda tan inaad noqonaysid ayaan waxa weeye ayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaaga rajeenayaa waa calaamado cadaynaya inaad nabi ummadda tan u noqonaysid qof caqli badan oo raaliya oo naxariis badan oo mar kastaba xikmad leh ayay ahayd khadiija ilaahay ha ka raali noqdee sidaas ayaana ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo quraanka ku soo dejiyay maantana adduunka oo dhan waxa weeye quraankaas aynu wada haysanno meeshuu ka bilowday oo waxa uu ku soo degay waa halakan ama waa qaarul xira oo meeshan hadda aan ku suganahay ah marka Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa waxa idin ka codsan inaan la dayicin rasuulku markuu quraan ku soo degay dabcan 40 jir ayuu ahaa rasuulku sallallahu wa salaamu alayhi إن شاء الله بإذن الله تعالى إلهي وحن أقبرينا قف كست أو مسلنا أو كتابك إلهي حفظية أو قرآنك إلهي حفظية إنه إلهي أقدق قرآنك كيو شفع قادلها إنه إلهي سبحانه وتعالى أقدق لها قرآنك كيو وحوي جنة أقود بلها ودرجات أقصرية وكفول لها أيان الله أقرجيني سبحانه وتعالى قف كست أو فيديوغان ولا ليس كلا أسي شارقرية أو مسلمين تجارسية أو تصمي أشي وحي وكسر دقينا إلهي وحن أقبريا سبحانه وتعالى إنه حافظ القرآن كدقه وإلهي أجري حسنات وكسيه خيرك iyo dacwada fidinteeda ayaan Allah subhanahu wa ta'ala uga rajeynaya dhamaantiina waxa idin ka codsanay inaad quraanka ilaahay dayicin oo quraanka ilaahay la akhriyo oo ma ilaahay keeno la isku dayo inaad xataa waxa way dhowr aayadood aad kalaamka ilaahay walaalayaal ka akhridaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ajr iyo xasanad alla soo koobi karin haydan ka siiyo inta ay daawanayseen fiidiyogaana u sii shargar walaalaha kale muslimiinta ilaahayna inagii kulligeenba hayno ka dhigo sadaqa jaariya cid kasta oo qisadan waxyiga waxa weeye barnaamijkeena kan ku daawata waxana weeye khayr baa idin rajeynayaa sidaas iyo assalaamu calaykum ورحمة الله.